Axmed Didat waxa uu ku dhashay magaalada Suuraj ee dalka India sanadkii 1918. 9 sano kadib Axmed Didat waxa uu u soo wareegay dalka Koonfur Afrika oo uu aabihiisa ku noolaa isla sanadkaasna waxaa geeriyootay hooyadiisa oo joogtay dalka India. Axmed Didat waxa uu galay iskuul ku yaala magaalada Durban ee dalka Koonfur Afrika. Markii uu gaaray fasalka 6aad waxa uu isaga haray iskuulka kadib markii uu awoodi waayay qarashkii waxbarashada iyo iskuulka. Isagoo 16 jir ah ayuu bilaabay inuu ka shaqeeyo dukaan lagu iibiyo qalabka xafiisyada sida kuraasta, miisaska iyo wixii la mid ah. Waxaa meesha uu ka shaqeeyo agteeda tababar ka bixin jiray culimo Masiixiyiin ah kuwaas oo dadka muslimiinta ah ugu yeeri jiray diinta Kirishtaanka, ayagoo ka faa'iideysanaya muslimiinta aan diinta Islaamka aqoonta badan u lahayn isla markaana iimaankooda uusan ahayn mid xoogan. Axmed Didat waxa uu marar badan tagay goobahaas lagu faafiyo diinta Kirishtaanka, aad ayuuna ugu kuurgalay asagoo aad uga xumaaday hagardaamada iyo baadiyeenta lagu hayay muslimiinta. Sheekh Axmed Didat asagoo yar ayaa waxaa ku dhashay fikir ah inuu badbaadiyo muslimiinta la baadiyeynayo isla markaana uu ka difaaco baadariyaalka had iyo jeer ku howlan inay marin habaabiyaan muslimiinta. Wuxuu bilaabay inuu ka qayb galo doodaha Kirishtaanka iyo muxaadaraadkooda, wuxuuna weydiin jiray su'aalo adag iyo xujooyin aysan jawaabo u haynin. Ma lahayn wax aqoon diinta Islaamka ah oo badan, kaliya caqligiisa ayuu kula doodi jiray kuna xujaysan jiray, heer markii dambe uu gaaray in laga xiro albaabaha goobahan si uusan su'aalo adag u weydiinin baadariyaasha. Waxa uu go'aan ku gaaray inuu fashiliyo beenta ay sheegayaan baadariyaasha Kirishtaanka ah. Waxa uu bilaabay inuu aqriyo kutubo iyo buugaag badan si uu nafsadiisa wax u baro una kobciyo fahamkiisa diinta. buug lagu magacaabo Idhaarul Xaqi ee uu qoray Raxmatullaahi Khayranaawi ayaa gacantiisa soo galay. Waa buuggii taabtay Axmed Didat ee hurdada ka kiciyay kuna baraarujiyay inuu sida ugu dhaqsiyaha badan u bilaabo ficil dhab ah. Wuxuu bilaabay inuu si xeel dheer u aqriyo kutubta diiniga ah ee luqadda Ingiriiska ku qoran, maadaama uu ahaa qof si fiican u fahansan luqadda Ingiriiska. Ma haysan lacag uu dugsi ama madraso Islaami ah ku galo, hase yeeshee midaas ma aysan ka hor istaagin inuu barto diinta wax badanna uu ka fahmo. Turjamaada Quraanka ayuu dusha ka bartay. Kutubo kale oo diini ah sida Saxiixul Muslim iyo Saxiixul Bukhaari ayuu daraaseeyay. Markii uu diinta wax badan ka fahmay ayuu u soo jeestay inuu Bible-ka wax ka barto. Ujeedkiisana waxa uu ahaa inuu Kirishtaanka kula dagaalo kitaabkooda isla markaana ku xujeeyo. Muxaadaradii ugu horeysay ee uu qabtay waxa uu qabtay sanadkii 1942. Muddo kooban kadib wuxuu noqday caalim weyn oo ay ka dhuuntaan baadariyaasha Kirishtaanka ee magaalada Durban. Sheekh Axmed Didat waxa uu aasaasay sanadkii 1957 Islamic Propagation Center International oo ahayd hay'ad weyn oo ka shaqeysa faafinta diinta Islaamka. Waxayna hay'adda si bilaash oo lacag la'aan ah ku bixin jirtay kutubta Islaamka, gaar ahaan kuwa isbarbardhigga diimaha ku saabsan. Wixii ka dambeeyay 1980kii, Sheekh Axmed Didat waxa uu bilaabay inuu u safro qaaradaha Yurub, Ameerika, Afrika iyo Australia si uu u faafiyo diinta Islaamka ah oo isla markaana dood diimeed la galo baadariyaasha. Intii u dhaxaysay 1985 ilaa 1995 waxa uu u safray si uu doodo ula yeesho culimo looga dambeeyo diinta Kirishtaanka. Waxa uu safar ku tagay dalal ay ka mid yihiin USA, Britain, Pakistan, India, Sweden, Saudi Arabia iyo Canada iyo wadamo kale oo badan. Muxaadaraadka iyo doodaha Sheekh Axmed Didat ilaa iyo hadda waxaa laga daawadaa muuqaal baahiyaal caalami ah, waxaana weli laga heli karaa barta internetka ee muuqaalada lagu keydiyo ee YouTube-ka. Dadkii uu doodaha la galay waxaa ka mid ah James Swigert iyo Robert Douglas
oo ka mid ahaa dadkii looga dambeeyey faafinta diinta Kirishtaanka. Waxa uuna la galay dood oo uga dhigay casharo badan oo ilaa hadda dunida ka ah wax lama ilaabaan ah. Sanadkii 1986 waxa uu ku guuleystay abaalmarinta Boqor Fahad, waxaana lagu tilmaamaa inay tahay abaalmarinta ugu qiimaha badan Islaamka. Buugaagtii uu qoray Axmed Diidaad oo ka badan ilaa 20 buug ayaa ilaa iyo maanta laga heli karaa maktabadaha caalamka. Waxaana ka mid ah buugaagtiisa The Man and His Mission, Christ in Islam. waxaana marka laga soo tago muxaadaraadkiisa buugaagtiisa ku soo islaamay dad fara badan. Wadankii ugu dambeeyay ee uu u safray Sheekh Axmed Diidaad waxa uu ahaa dalka Australia sanadkii 1996. markii uu ka soo laabtay safarka waxaa isla markiiba ku dhacay cudur maskaxda ku dhaca oo loo yaqaano stroke. cudurkaas ayaa sababay in Sheekh Axmed Diidaad uu dhaqaajin waayo jirkiisa, wuxuuna ku soo aruuray sariirta, xataa waxa uu awoodi waayay hadalka. dalka Sacuudiga ayaa loo qaaday si loogu daweeyo, hase ahaatee dhaqaatiirtii waxay sheegeen in xaaladiisa ay aad u xun tahay. 10 maalin kadibna uusan sii noolaan karin. muddo 9 sano ah ayuu sidaas u xanuunsanaa, ma awoodin inuu socdo, hadlo ama fariisto. waxaas oo caqabad ah kama aysan reebin inuu dadka Islaamka wax ka baro. waxa uu Sheekh Axmed qoyskiisa iyo reerkiisa kula hadli jiray qaab qoraal ah. waxaa derbiga loogu dhajiyay boor ay ku qoran yihiin xarfaha alfabeetka, waxaana boorka ku xirnaa qalab aqrinaya xarfaha uu indhaha ku fiiriyo. sidaas ayuuna ula xiriirayay Sheekh Axmed Diidaad faamilkiisa iyo ardaydiisaba, oo uu ka mid ahaa Zaakir Naik oo inta badan aan wada naqaano. 8 bisha Agoost 2005 ayuu geeriyooday Sheekh Axmed Diidaad kadib xanuun hayay ilaa 9 sano. waxaan Ilaahay uga baryaynaa inuu u naxariisto Sheekh Axmed Diidaad, jannadana ugu abaalmariyo acmaashiisa wanaagsan iyo dacwadii diinta Islaamka uu u soo sameeyayna ka aqbalo.